الليل ملك وابو وينو كلا فوقان مياكو ورمي ولي kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha ee raadiyaha Daardheer oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad dhageysataan asbuucan barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qaybta labaad ahna qaybta ugu dambaysa ee wareysiga aan la yeelanay aqoon-yahanka da'yarta ah ee Mustaf Warsame Sabriye Timcade anigoo Cabdaar Garaadaha ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya Liibaan Maxamed Cabdi ayaana farsameynaya ku soo dhawaada mar kale waayaha nolosha oo raadiyaha Daardheer aad ka maqashaan waynu kala fogaan miyaaku warramay weli Mustaf Warsame Sabriye ayaa toddobaadkan barnaamijka markii labaad marti noogu ah waxaana mursal qaybta labaad ee wareysigiisa aynu si aan baqaadi doonaa wareysi xiiso badan oo toddobaadkii hore aan la yeelanay waxa uu ka sheekeynayaa qaybtan xaaladihii kala duwanaa ee qoraalka iyo waxbarashada iyo soo guuritaankiisa magaalada Muqdisho isagoo ka soo wareegay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waayihii ugu dambeeyay ee shaqo ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka Mustaf ayaan mar kale soo dhaweynayaa halkiisii wareysiga nooga sii ambaqaada waxaan xasuustaa qiyaastii 8 sano ka hor inaan ku fikiri jiraan dhihi jiray buugaagtan waxaan uga qayb geli doonaa bandhig la yiraahdo Muqdisho Book Fair ma jirin Muqdisho Book Fair mar 1960kii dawladda kacaanka ayaa hal mar isku dayday dawladda rayidka inay qabato hal sano la qabtay kadib waa iska buro marka anoona fikirkaas heesan aan waxa aaminsanaa madba bandhig buug oo imaan doona mustaqbalka inuu imaan doono nasiib wanaag 2017kii bishii September 13keedii bandhigii buugaagta ee Muqdisho ayaa markii ugu heeday laba buug oo qayb galay oo la oran jiray Islaamka iyo dunida iyo masiibada madow Afrika labadaas buugna midna wuxuu ka hadlayaa Islaamka wuxuu adduunyada ku soo kordhiyay horumarka uu keenay waxa soo dhan ka hadlaa midna wuxuu ka hadlayaa Afrika iyo taariikhda Afrika waxay tahay iyo Afrika goorma la gumaystayaasha Afrika magaalooyinka Afrika hogaamiyaasha Afrika iyo Afrika heerarkii kala duwanaa ay soo martay ayuu ka hadlayaa waa gartay dadku qoraalkii waad bilowday ka caawiyo isdii kartaa waayihii aad ku soo jirtay qoraalkaaga waxaas ku caawiyo ama cidaas ku caawisay oo aad isleedahay uun sabab ay u ahayd maanta inaad meel fiican soo gaarto runtii ninkii gudaa mudan runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa hooyaday macaan oo runtii laf dhabarka horumarkayga because qofka kula nool haduusan galinayn waxa sameynaysa qiimahooda wax badan ma gaaris aalagaanigi jabinaay hooyaday runtii oo qof tacliin ku soo barbaartay ahayd ayaa udub dhaxad u ahayd inaan guul gaaro because hooyaday waxaan ku xasuustaa raadiyoyada aad u jeclaa raadiyoyada nationalka yariiskana way halaabi og yihiin maalin kastaba waxa dhici jirtay bil kastaba in hal raadiyo gato hooyo waa iga halaawar haddana way igidi jirtay because waxay ogeed waxaan u soo jeedo oo habeenkii aan u soo jeedo wax qorayo inaysan wax sahlan ahayn oo waqtiga iyaga lumaayo oo dhididka iyaga lumaayo inaysan wax inaba caadi marka garab istaagaas koobaad oo hamigaaga waxa inay sii socdaan hooyaday macaana number 1 yani sheeg ahayd tiirkii koobaad ee riixay ee bushkaray inaan meel gaaro iyo aad waa runtii waa wax xusid mudan waxaan rabaa sidoo kale waxbarashadii iskuulka horta goorme ayaad dhameysay sidee u fikirtay inaad markaa kadib u wareegto ama u soo wareegto magaalada Muqdisho marxaladii kugu xeeraa markaas aad ugu soo wareegtay iyo bal sheekooyinka ku saabsan isbedelkaasi ama guuritaankaasi hay Cabdaara waa mahadsan tahay aniga waxaan ahaa ardaydii ugu dambeysay imtixaankii dawladda centralizing markii ugu horeeyay la qaaday imtixaankii dadka ka baaqdan kamid ahayd sababteena waxay ahayd deegaankeena wax ka dhacay dagaalo bishii imtixaankii la galayay oo bishii May ahayd iyo bishii ku xigtay baqaxan ku maqnay dagaalo deegaan ka dhacay darteed ayaan uga baaqanay kadibna daladeeni sayf iyo wasaaradda waxbarashada heshiis ay gaareen ayaa daladu nooga qaatay imtixaanka
waxaan noqon lahaa ardaydii ugu horeeyay kadib burburka imtixaanka dawladda qaad laakiin nasiib darro ma helin kadib waxa waaye markaan dugsiga sare dhameeyay hal sano ayaan macallin soo noqday iskoolkayga ablaal gurceel ayaan macallin ka soo noqday